markana waxaan u yeeri doonaa nin wax badan ka og xaaladda deegaanka mas'uulka deegaankana wax badan ka og oo ahaa madaxii dhammaa ee protocolka deegaanka baa inoo fadhiya akhbaar badanna inaga siin doona deegaanka iyo xaaladda uu ku sugan yahay mudane cabdiqaadir bisle ku soo dhawow hala soo dhaweeyo si fiican loo soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waan salaamayaa marti sharafta meesha sugan timid dhammaan rag iyo dumarba iyo inta nagala socota warbaahinta dhammaan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta markaan ka gudbo muhiimaddii shirkeenna iyo ujeedooyinkeennii dhammaan waa laga wada hadlay Dr. Faisal baa inoogu dambeeyey oo si fiican u qeexay waxa maanta ka socda Ethiopia waddankeennii xisbigan aynan u dhannayn dhammaan qowmiyadaha Ethiopia marka waxaan yara rabaa bal inaan in yar xisbigan siduu inagu nagu soo galay deegaankeenna iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay inaan wax yar ka hadlo iyo shakhsigan hadda naloo sheegayo ee nala leeyahay waa ladiin magacaabay ama jagadii ugu sarreysay dowladda federaalka buu idiin matalayaa cidda uu yahay deegaankeenna muxuu qabtay siduu soo shaqeeyey inaan wax yar horta idin yar ifyaan u baahnahay insha allahu aadan xaqiiqatan soomaalidu waxay tiraahdaa gaalka dil gartiisana sii aadan muddadii 15 sano hadda ugu dambeysay aadan faarax waxa uu ku soo jiray siyaasadda deegaanka ama ta Ethiopia ha noqoto ama tiina deegaanka gaarka ha noqoto aadan wuxuu ahaa ruux ku soo jiray siyaasadda in badanna ka soo shaqeeyey isagoo mara inagu matalaya ismaamulka diradhabo ee gaarka ah marka aadan waxa weeyaan waa nin in badan ku soo jiray siyaasadda guud ahaan ee waddanka iyo tayna gaarka aha laakiin aadan cabir nooc ma ah ayuu inoo taagan yahay muxuu inoogu suntan yahay maxaynu ku xasuusanaa muxuuse hadda inagu soo beerin doonaa aadan inaan isweydiinaa muhiima waxaa weeyaan aadan waxaan ka bilaabayaa kolkii xukuumaddii tan maanta jirta ka horreysay cabdi maxamuud cumar ee meesha ka baxday isbeddelkii dhacay maadaama maamulkii markaa meesha jiray gebi ahaanba uu meesha ka baxay xukuumaddii cusbeed meesha ay timid oo Mustafa hogaaminayay aadanna uu ku xigeenka u ahaa wuxuu ahaa aadan ruuxii xukuumaddan maanta jirta bilowgeedii aasaaskeedii dhidibada u istaajiyay buu aadan shaqada ugu ballaaran ee xukuumadda jirta maanta kolkii tii hore ay burburtay ninkii soo dhisay weeyaan aadan sida wanaagsan wax uga soo qabtay xaqiiqatan waxaan taa ula jeedaa hore baan uga hadlay shakhsigu waxa uu qabtay ee saxda in la qariyo ma aha ama aadan ha noqdo ama Mustafa ha noqdo waxa uu shakhsigu qabto ee wanaaga ummadeena uu qabto in la sheego waa waajib weeyaan walow ay tahay la shukr ala alwaajib wax waajib loogu lahaa oo ahayd inuu qabto ayuu horta aadan qabtay taa waa uu ku mahadsan yahay markaan taa ka soo gudbo aadan waxaad ogtihiin in uu ku biiray xubnaha ugu sareysa dowladda federaalka isagoo fadhiya xafiiska talada waddanka Ethiopia looga taliyo House of Federationka inuu aadan gudoomiye ka ahaa baad ogtihiin nasiib daro xafiiskaasi waxa uu shaqadiisa
khaaska marka laga soo tago waxyaalaha gaarka uu qabanayo shaqadiisa gaarka waxay ahayd sida arinta imika ina dhex taala inaga iyo canfarta oo kale in uu xadeynta labada deegaanada sida deegaanka Oromida haday tahay iyo haday ta Soomaalida tahay iyo haday ta canfarta tahay aadan waxa uu isagu mas'uulka ahaa go'aankeedana uu ka gaari karo xilligii uu xafiiska joogay in uu dhulkii inaga maqnaa ee xaq darrada ee uu waliba isagu aadan ku saxeexay gacantiisa ee uu isagu waliba uu ku gooyay gacantiisa in uu inoo soo celiyo ayaan horta aadan ka sugaynay marka uu jagada uu qabtay laakiin nasiib darro aadan hawshii aanu ka filaynay ma uusan qabanin waxaad aragtay baa ka dhacay dhulkii aynu isku haynay inaga iyo canfarta waxa intaas sii dheer aadan wuxuu kari waayey iska daa dhul uu inoo soo dhiciyo iyo xaq inaga maqal uu inoo keeno wuxuu aadan kari waayey in uu shacabkii meeshan laga laayay iyo maatidii soo barakacday in uu xitaa uu muujiyo at least macnaheedu inuu ka xun yahay inuu sheego iska daa mas'uuliyiinta deegaanka macnaheedu aadan baan ka hadlayaa kuwa deegaanka wax tala ay hadal ay ku darseen ma jirto masiibadii ka dhacday meesha iyo xasuuqii lagu sameeyay shacabkeena galbeedka city wixii ka dhacay waad ogtihiin hadda markaan ka hadlo arintan la leeyahay maanta way soo biirtay horta aadan wuxuu noogu suntan yahay waxaan la iloobi doonin oo taariikhda deegaankiina ay qori doonto oo in uu aadan dhabarkay naga jabiyay isagoo mar weeyaan saxeexay dhulka in loo gooyo canfar marka labaadna isagoo meeshii go'aanka looga gaarayay inta uu jagadaasi ku fariistay wax go'aan aadan una ka soo saarin marka waxa horta loo baahan yahay aadan shakhsiga uu yahay horta inaan ogaano markaan taa ka gudbo waxa hadda aad arkaysaan taniyo shalay ka socday ururada waxa weeyaan horta looma dhanna oo waad ogtihiin ururkan BB xisbu shaytaan baan u yiraahdaa looma dhanna oo waad ogtihiin qowmiyadaha Itoobiya oo dhan iyo axsaabta Itoobiya oo dhan in ay ururkaasi gacmahooda ka laabteen talaabadii ugu horeysay oo qaado ururkaasina waxay ahayd in taariikhda inta Itoobiya la og yahay dhiigii ugu badnaa uu daadiyo horta ururkan waxa uu ku suntan yahay baa taasa deegaankeena markaan u soo noqonana waad ogtihiin horena waan u sheegay dukumentigii saxda ahaa ee ururkan lagu diyaariyay inaanan waagii la leelinayay ee la carbinayay deegaankeena inaanan totalab la soo gaarsiinin oo ku ekaa un mas'uuliyiinta sare ee deegaanka iyo madaxweynaha marka ururkan horta waxa weeyaan waxaan hadda u arkaa macnihii waxyaalaha khayrka la oran jiray naftaada u qaado naftaada ka qaad macnihii iyagu unbaa waxaan macnihii hadda inoo muuqda innaga isu camiree urur Itoobiya ka turjumaani kara ama Itoobiya matali kara midnaba ma aha marka inta horta la aaminsanaada muhiima sidaan horta loo ogaado wax macnuu soo kordhinaya ma jirto urur loo wada dhan yahay ma aha doorashadii wadanka ka dhacday waad ogtihiin axsaabta xalaasha ay xorta si u dhan yihiin bina gacmaha ka laabteen waad ogtihiin marka waxa noo soo kordhay meesha ma jiraan mid kalena waad ogtihiinoo awrka hayinka ee laylsan maaragtay sida fiican xilliyada dhibta lagu jiro reerka urara lama sii daayo aadna waa loo xanaaneeyaa marka nin hadda la leeliyey oo la soo tababaray oo waxyaalo badan ay isla soo mareen miyaad isleedihiin imika Itoobiya degdeg bay ku sii deynaysaa waa maya ninka aaminsan maanta isbedel baa deegaankiini ka dhacaya oo maanta xagga waxa ka socdaba ina saameynaya deegaankiini isbedel baa ka dhacaya aniga ka shakhsi ahaan Cabdiqaadir ahaan waxa meesha ka socdaana aaminsaneyn haddana ma aaminsani inuu deegaankiini maanta isbedel u soo socdo ama xukunka ha moorarsado abi ama ilaa qabalaha soo magacawdo laakiin de shakhsi u idman baaba jooga meesha
oo wax la isku diidaysan jirinba marka inuu cid cusub hadda uu yagleelo oo cid cusub uu meesha ka soo saaro u malayn maayo inuu abi hadda uu macnihii effort badan uu sii gelinayo taa markaan ka gudbo dhammaan waxaan rabaa dhaqdhaqaaqyada ka socda waddankan aan joogno iyo hadday North America noqonayso iyo hadday noqonayso Kenya waa dhaqdhaqaaqyo lagu hiran karo wax badanna aanu ka rajaynayno insha Allah madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa aad ugu celceliyay maalmihii dhaweeyay inuu yiraahdo waxa Nairobi ka socdo waan ognahay wax ka soo kordhina ma jirto waa hadallada uu madaxweynuhu ku celceliyay bay ahayd madaxweyne Mustafa halka in yar haddaan dib ugu noqdo taariikhdii madaxweynaha kolkii xisbigan hadda jiro lagu dhawaaqay madaxweynaha loo soo gudbiyay dokumentigii ku qoraa habeenkii 10kii habeenimo madaxweynaha markuu arkay wixii dhacay ay dhaceen kulli hore waan u sheegay elasla macnihii la soo fahansiiyay waxaan wuxuu yahay aroortii ku xigtay madaxweynuhu horta wuxuu safray Nairobi waa meeshan uu hadda uu leeyahay cidda joogta waxba ma qabanayso iyo waa cid macnihii sida iyo uu ka sheekeynayo madaxweynuhu safar buu galay wuxuu tagay Nairobi buu tagay isagoo booqanaya reerkiisa ama xaaskiisa ama awlaadiisa waa sida uu xukuumadda federaalka markaa u sheegay kolkii la soo cabsiiyay ee la yiri qaado waxan isagoo qarnaya waliba madaxweynuhu markuu Nairobi tagay anu ma raacin adsabaan sii joogay maadaama xaaladda adsaba markaa ay yara jirtay xaalad yare cakiran baa ka jirtay way argagaxsanaayeen maamulka hadda jira khaasatan guddigooda fulinta qaybta ugu sareyso wixii ay meesha ku soo arkeen iyo inuu sidan hadda uu inoogu sharaxay Dr. Faisal uu inoo sheegay markay arkeen khalkhal badan baa ka muuqday isaguna wuxuu markaa ku andacooday inuu xaaskiisii iyo carruurtii iyo reerkii gaarayo fasax baa la siiyey Nairobi madaxweynuhu tagay kolkuu madaxweynuhu Nairobi tagay 11kii habeenimo markay ahayd baa diyaaradii ugu dambeysay ee ka bixisay Adsaba baan anu aan raacay oo Nairobi aan tagay isaguna aroortii 8 aroornimo buu tagay ana habeenimo aan ka daba tagay waxaan u tagay macnihii waxyaalaha aan doonay inaad fahantaan madaxweynuhu waxaan u tagay qaxootiya oo qaxayba madaxweynuhu وماشي نيروبي وليه دتك أياد بعنيه دتك سود ولا معنا ملا يو حكين سريان ما شرتو مدحوينه ديجان كا أو ولي حلكي هيو إن متليا أو قحوت نقدر بنتجي أو جورجيسي شركة رائد قبطي وإنه ليهين وأنا أيشوجان دتك مركا أو يد مدحوينه وحكم ذها يوسف عبد يلاح اللهم نحرسه يوسف حاجي iyo Yusuf isliika MPga maxaa magaciisa Yusuf Xasan exactly saddexda nin buu yeedhay madaxweynuhu waa uu la tashaday markaa wuxuu madaxweynuhu markaa leeyahay ilaa 500 oo message buu habeenka diray intaan sii socday anigu oo adduunka dhan uu diray madaxweynuhu daafaha adduunka dhan buu diray uu leeyahay khatar baan galay nafteedu halis bay gashay ma soo noqonayo waan haynaa document macnihi message ku habeenka uu diray قال لي اسلام بوحو قرني هبين كان ماسيج بودر مدحوينه وان كدب تغي غورغي بان تغي waxaan ugu tagay saddexda oday oo la fadhiya isaga waa ay joogan odayaashii Allahu naxariisto Yusuf Xaaji oo dhintay mooyee wuxuu markaa leeyahay ma noqonayo safaarada Mareykan galiya waa madaxweynaha deegaanka ma noqonayo safaarada Mareykan galiya war maxaa dhacay haddaan ogaan lahaa maba aan soo celiyeyni inkaar qabaha odayaashii baa yaaban waxay leeyihin warse waxu jiraan wuxuu leeyahay ma noqonayo meesha waxaan soo arkay wax caadi ma dabcan waxa uu soo arkay waan ogahay anigu wuxuu yiri ma soo noqonayo meeshii kuma noqonayo safaaradda Mareykanka carruurtu gacmaha haystaa waa qaxootiga madaxweynihi warse waxu jiraan معني واسك قرنيسان عاطفة معني عاطفة إيو
shakhsigu marka uu meesha joogo in adeerkaana yahay waad caadifad baa ku qaadi waxaan isleeyahay anu markaa war meesha maamulku ma haynee cararkana taariikh xumaa idinka raacay oo maamulkani uu fashilan yahay oo waaban arkaaba markaa taariikh xumo madaxweynihiina wuu cararay ba aniga macnihii ii cuntay weydii waanan aqaanaa oo dee maadaama dee xigtana aan nahay shaqadiina aan la shaqaynayay waan fahmi karaa anu markaa saan u maaraynaya xilliga xaaladdu ku jiro marka waxaan idhi odayaashii baa yaaban warbal isteji warba caruurtan iyo waxaad gacmaha qabsanaysid hawshanaad ku tirtid bal jooji isteji may safaaradda Mareykan gelina meel kale ku nabadgelaya ma jirto halkan baa isbixisa uu qaliya madaxweynihi warbal isteji odayaashii baa way leeyihiin waa la weydiin karaa waa wax caadi ah fakta xaqiiq dhacday weeyaan ma meeshan Nairobi uu hayo uu leeyahay Nairobi meesha waxba kama jiraan waan u galay odayaashii baa yaabay warbal niyow bal isteji say wuxuu jiraan waxa weeyaan dukumeenti aan inaba macnihi macquul ahayn baan arkay hawlo kalena way dhaceen sida daraadeed ma noqonayo safaaradda Mareykan galaya adigu hadal badan markaan wada hadal kadib odayaashii waxaan ku yiri annaga isku harayna aniga hawshiisa ninkan xalinaya ana wadankii ku celinaya kule raali gelin baan ka bixinaya masiibadan ma ogeyn anigu qaybka ma ogi shakhsigu wuxuu bari noqon doonaa anigu ma ogi anigu hadda waxay hor yaalloon baan ka hadli karaa laakiin bari wuxuu noqon doonaa ilaahay baa og dabcan ma soo celiyeen haddaan moodayay inaan wax la kulmayno laakiin adigu waan wada hadalay waan soo celiyey madaxweynihii waxaan ku yiri waxa weeyaan annagoo meeshiiba ku fashilna wax macnihii maamul aanan ku haynin iyo noogu darimaysid wuu cararay madaxweynihii waadna celin aad sabanun ku noqonaynaa ama ha lagu dilo ama ha lagu daayo aday ku taala laakiin waad noqoni waxaan adaa ku jiray qalinka inta dhanka wadanka soo laaqday haddana waan baxsani oo qaxooti baa noqoni suurtagal maaha waxaan aqliga gelin weeyaan waxaan ku yiri madaxweyne markaa waxa weeyaan madaxweyne waadna celin habeenkii markaan soo galay markaa waxaa nala soo hadlay mas'uuliyiintii Itoobiya oo dhan baa nala soo hadlay dhammaan telefonkay soo wada galeen Mustafa Isteji wax dhiba ma jiro soo noqo cid dib ku gaarsiinaysa ma jirto madaxweynihii deegaanka tahay soo noqo waxaana la joogay markaa gurigana la joogay Zeynu Hussein nin la yiraahdo oo mar haysan jiray federal police-ka oo ahaa markii madaxweynaha deegaanka la keenayay dadkii sida khaaska ra'iisul wasaaruhu ugu magacaabay hawsha madaxweynaha in deegaanka la geeyo iyo soo dhisidii xukuumadda ka soo qayb qaatay oo Zeynu Jamaal la yiraahdo aan jeclahay bayna la joogay oo markaa u wareegay qaybta UN-ta dhexdeeda markaa ku biiro loo magacaabay markaa iyo nin kale oo dee firfircoonaa oo Axmed Dheere la yiraahdo isagoo aad isugu dhow yihiin bayna la joogay adigu waxaan wada hadal kadib madaxweynuhu waxaan aaminsanay inuu noqdo waan soo wada noqonay waxaan soo galay airport Jomo Kenyatta airport baan soo galay 3 diyaaradood baan naga tagay saan airport ku wada hadlaynay waa la dilayaa ma noqonayo waxba dhacaya wax ma dhacayaan wax dhacaya ma jirto madaxweynaha deegaanka tahay shaydaanka iska nar noqo oo niceli wax dhacaya ma jirto adoo almuhim diyaaradii ugu dambeysay baan soo raanay oo nagu soo galay Addis-Ababa wax dhacay ma jirin aroortii Axmed Shidaan noo yimid mas'uuliyiin kale oo noo yimid oo de federaalka ahaana way jireen sidii baan ku soo noqonay oo nu jigjigana ku nimid macnaheedu waxaan ujeedada hadalkayga aan idinku sheegay waxa weeyaan horta waxa weeyaan waxba yeelan macnihii in badan qalbigeenu ku soo noqnoqonin BB waa wax nagu soo beerin iyo BB ba wax inoo keeni iyo BB ba macnihii magaranaysaa sii jiraysa anu ma aaminsan BB inay sii jirayso hadduu Ilaahay yiraahdo haddii in case in uu suurtagal noqonayo in xukuumadda federaalka mar labaad iyo shacabku deegaanku ay mar labaad in la wada hadli karo ama loo hanqal taagi karo annagoo og xukuumadda federaalka waxay noo soo wada aysan jirin ay waxay xulasho tahay waad ogtihiin
national dialogue ninka naloo magacaabay iyo taariikhdiisa waad ogtihiin wax taariikhu ku leeyahay deegaanka Soomaalida haba yaraatee ma jirto waad ogtihiin madaxweynihiina deegaankana waa ninka baxsaday soo noqday marka waxaan leeyahay inaga ka shacab ahaan waxaan hadalkayga macnihii idinku sheegayaa waxyaalaha dhacay waxaan uga jeedaa waxa weeyaan anu ma aaminsani inay Ethiopia waa laga yaabaa xalo isbedel mucjiso inuu dhaco waa laga yaabaa waa suurtagal weeyaan laakiin anigu shakhsi ahaan ma qabo shakhsi Mustafa oo kale inay iyagu helayaan weligeedna intaanu Ethiopia kamid ka ahayn dabcan siday iyagu aan wax ula qaybsan lahayn iyo waxaynu ka fikiraa sida aynu xaaladaha iyaga naga soo wajahan aan maareyn lahayn laakiin inaga dhexdeena weli meeynaan isku mashquulin taariikhda deegaanka intuu jiray waa ninkii koowaad ee inaga dhexdeena isku mashquuliyay oo ogtihiin waxa ina haysta imika marka dabcan Mustafa oo kale federaalku ma heli karaan waxba badan baa u dheer waliba oo halkan anigu afka soo marin karin marka isagoo kale ma heli karaan aadan faaraxna waa ninkii dhulkeena gooyay shacabkii galbeedka city sida aad ogeed loogu galay shacabkeenii waa ninka wendi aan ka hadal halka uu damaqa mukonan uu Benishangul wixii ka dhacay intuu federaalka ka dhex istaagay xafiiskiisa uu ka hadlay waliba ciidan ugu diray ciidanka Leopoldska Amaraka leeyihiin ba u diray halka deegaankeenu wax tala iyo wax hadala ayna ka geysanin khasaaraha ka dhacay ee galbeedka city ee shacabkeena loo geystay waxaad ogtihiin hadda oo wada joogno waxa ka dhacay abaaraha dabcan waa laga wada hadlay ma sii jeceli inaan in badan ka sii hadlo waxaan almuhim ku soo koobaya hadalkayga waxa weeyaan kulli dacwa tiri wala reer aan ogahay ma guuro warninkan ogahay wax khayr noo soo wada ma jirto wax wanaaga oo Mustafa uu noo keenay haba yaraatee walaysan jirin waan inaan aan ogahay weeyaan waxaan markaa leeyahay shacabku ha isku tiirsanaadaan inaga keeni kara isbedelka Ethiopia waxa aynu ka doonayno inaga keeni kara markan inagoo mida aynu xaqeena iyo xuquuqdeena ka hadalno waynu soo maray dabcan dhibaato badan baynu soo maray waynu ognahay halgankii muddada dheer soo socday ee ururka ONLF waynu ognahay maantana deegaankeenu waxa uu ku taagan yahay inta Ilaahay ka sokaysa waxa weeyaan bislaanshaha ay ONLF bislaatay iyo khibradii ay dagaalka ka heshay iyo wixii ay soo martay inta Ilaahay ka sokaysa nabadda ay qaadatay weeyaan oo waliba nabadii ay qaadatay sidoo u dhanaa wax laga fuliyay aysan jirin lagu ballan furay totaally waxa ay soo qaadatay oo dhan ma waxaad u maleynaysaan dabcan rag baan nahay bini aadan baan nahay shacab waxaan nahay maskaxda xorka ah wixii doonaba Ethiopia ha noo isticmaasho haddii Ethiopia in aan isleenahay maanta waan wada hadli karaa oo waxba ina dhex mari karaa waa haddii maamulka hadda jira wax ka bedesho walow aan aaminsanahay anagu aan iska bedeli karno haddii kalena waxaan aaminsanahay wixii kale xala intaanu tashanno inanu xalkiina gacanteena ku jiraaye aan isku tashanno aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh